asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan u wanaagsan dhegaystayaal meel walba joogtaan iyo si walba ad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi xilligan oo kale habeen walba marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee muqdisho askarta laaye abwaan madhaafe wariya aase odaya gowrac inkaar qabooyin allow naf anaa islaama adaa iblaysa ilaah aqoono agoonta baade ayayo gowrac ayaa tihiine allow nakiin dhaafi mar kale kuna wacan wanaagsan saaxiibayaal waa arbaco khamiis ay soo galayso 18 bisha 9aad ee September sanadka 2019 qodobada barnaamijkan xog waraysi caawa aad ku dhageysan doontaan haddii Allah uu dileedmo waxaa ka mid ah dhimashay dhaawac ka dhashay qarax caawa haleelay gaari uu saarnaa mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan haddii Allah uu dileedmo waxyaabaha kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka cadaado oo ay ka qayb galaya shirka dib u heshiisiinta galmudug waxay sheegeen in madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali kheyre ay u ballan qaadeen dhammaynta tabashada reer cadaado warkaas wax ka soo jira hadda waa la dhameeyey masalan waxaa lagu dhameeyey in dowladda iyo dowladnimadu laga dhexraadiyo wax kastoo ay reer cadaado tawaaya ahlusunna waljamaaca waxa ay dood gelisay ciidamo ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya doonayso in la geeyo magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay doodda arrintaasi ku saabsan ama muranka ayaa maqli doontaan waxyaabaha kale caawan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya oo ku sugan gobolka Hiiraan ee Soomaaliya oo maanta shaqo joojin lagu sameeyay kadib markii ay amar diido sameeyeen waa maxay amar diidadaas yaasa ku sameeyay goordho ayaa maqli doontaan waraysi arrintaasi ku aadan waxaa kaloo aan idiin soo gudbin doonaa xisbi uu guddoomiye ka yahay mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida kuwooda ugu caansan oo maanta la guddoonsiiyey shahaadada diiwaangelinta ku-meel gaarka ah oo ay bixiyaan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya waxaad maqli doontaan guddoomiyaha siyaasiga ah oo arrintaasi ka hadlaya waxaa kaloo aan idiin soo gudbin doonaa Jubbaland oo sheegtay in ay dhibaatooyin daran ay ka dhaxashay cunaqabateen ay ku soo rogtay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa kaloo aan idiin soo gudbin doonaa dagaalo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo ay Jubbaland sheegtay inay shabaab ku dishay walaal meelaha aan ka qabsanay shalay tuulooyinka laga qabsaday oo kale saarad ciidan ayaan kaga qabsanay deegaanada xaqiiqada dadka ay ku dhibaataynayeen meelaha qaar keynta rasaas iyo ugu jirtay baan kala wareegnay ciidamada ay gacanta ku soo dhigay iyo qof ragii dhintay ee meesha kaga baqtiyay qodobadaas waxay kale nagu soo kordhay inta barnaamijkan ku guda jirnaa ee saaxiibayaal maqli doontaan xubinta kalamaan iyo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa heestan hadaad murugoto musana ugarweye ya muwaadinku away mar hadaad murugoto musana ugarweye ya muwaadinku away barnaamijka waxaa soo saaray Cali Cilmi Salaad anigoo Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa tabin doona Cabdirasaaq Xasan Axmed noo farsameynaya saaxiibayaal waa mar kale iyo xog waraysi guri ku duway gacan sugtiyo gaf lagu sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geed ka baxay godin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geed ka baxay godin ku taal gadowya isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan oo mowjada FM 88.9 megahertz kaga baaqda dadka ku sugan shabeellada dhexe iyo gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeellada Hoose ayaa mowjadaas FM toos nooga dhageysan kara dhageystayaasheena beledweyne reedo wadani ay xilliga naga maqlayaan halka dhageystayaasheena magaalada Gaalkacyana ay naga dhageysanayaan reedio hayaan
dhegeystayaashiina ku sugan maraykankana kala FM ayaa nagala socdaan saaxiibayaal. ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhintay, tiro kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii qarax lagu sheegay inuu ahaa miinada nooca dhulka la geliyo ee ka qaraxday ama ay ka dhacday meel u dhow isgoyska Xaaji Baasto ee magaalada Muqdisho. waxaana qaraxa xilligii uu dhacay halkaasi marayay xildhibaan Cabduqaadir Carabi oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. askarta dhimatay ama geeriyootay ayaa la sheegay inay ilaalo u ahaayeen xildhibaan Cabduqaadir Carabi oo gaarigiisa u haleelay qaraxa. xildhibaanku waa uu nabad qabaa, waxaana xubno kale oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ay noo sheegeen in aysan jirin wax khasaare ah oo xildhibaanka soo gaaray. xiriiro aan la sameynay caawa nooma aysan suurto gelin si aan xoga weydiino qaraxaasi oo askartiisa qaar ka mid ah ay ku geeriyoodeen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. sidoo kale ma jirto wax war ah oo ka soo baxay hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. markana Galgaduud waxaa soo dhammaaday qaybtii koowaad ee shirka dib u heshiisiinta Galmudug, waxaana soo xiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirkaasi markii uu bilaabanayay ilaa markii uu dhammaanayay waxaa socday doodo ay qabeen dadka dega magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya. waxaana sidoo kale hadda soo kordhay dood ay gelinayaan qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed qodobada ka soo baxa shirkaas. waxaana xisbiyada qaar u hadlay ay shirka geliyeen in odayaasha dhaqanka ay xog ogaal ka ahaayeen 7 qodob ee shirka laga soo saaray in kale. si aan arrintaasi wax badan uga ogaano waxaan weydiiyey oo aan la hadlay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qayb gala shirka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Soomaaliya ku soo gabagaboobay, sidoo kalena ka tirsan dhaqanka Cadaado ku matalaya shirkaasi. walaalow Galmudug waa leeyahay lug joogtaa sidii ma noqoto. Galmudug juhdi badan ayaa dowladda federaalka ku bixisay. waxay magacaabay guddi dib u heshiisiineed isagoo wasaaruhu 2 bilood ayuu ku dhowdaa joogay. waa dhex maray inta badan. halkaas ka bacdina guddigii waxay sameeyeen odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii iyo ergo ayaa la soo xareeyey. arrintaas waxay loo sameeyey dib u heshiisiin baa la qabtay. shaqo badan ayaa adigu si goonigooniya qabiil 11 jufo waa goonigoonina waa loola kulmay. si guudna dee wixii ay tabaayeen iyo waxooda dhammaan waa la dhegaystay. wixii la dhegaystana dukumenti ayaa laga sameeyey. dukumentigiina kolley guddiga dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha ku wareejiyey. arrintaasuna dee aqoolo kasta waxa ay ka cabaydana ayada dukumenti ayaa lahayaa. shirkiina madaxweynaha ayaa soo xiray. halkaas ayaan kolley aniga waxaan rabaa inaan wixii dheeraada lasoo maray iyo waktigii dheeraay iyo maaragtay wadahadalkii badan Galmudug lala furay iyo kaasu dheeraada ku jira laga bixi maayo. laakiin dadka Galmudug waxay u baahan yihiin dowlad. كل هذا في فعله النظام كي يسسم كنا وصلا دولتنا غير الحال لا ياخذ هذا وايا marka wax laga heshiiyay ma jiraan u maleynayaayo wixii tabasha iyo cabasho beeluhu ay kala qabeen waxa loo dhursugayaa maamulka cusub imaan doona waa gudbiseen oo kaliya tabashada la dhageysto. wallahi ni oo tabashadu waa laga qaybood. waxa jirtay mid markaas taagneed oo sida maaragtay dil iyo maaragtay dad walaalaha sida xaraalo kale taasoo dambeyntii guddiga dib u heshiisiinta oo dambeynna ra'iisul wasaaraha iyo guddiga dib u heshiisiinta iyo odayaasha dhaqanka ayaa taas soo afjaray. waxaa laga muddo koowaad hadda muuqato la qabto arrinta xaraalo iyo waxa kamid ah taasoo midaas midda labaadna tabasho kale oo ayaduna la qoray oo wasaaraddu taagan tahay iyo odayaasha dhaqanku intana ay dowladda ka sugayaan ayadana waa mid taagan waay ma fahamtay. dad badan waxay isweydiinayaan mudane dad badan waxay qabaan oo isweydiinayaan oo ah su'aal ku taagan shirkan waxa la yiri waa dib u heshiisiin beelaha dega Galmudug. maxaa laga heshiiyay yaa is haystay oo dagaalsanaa oo heshiis la dhex dhigay ilaa hadda su'aashaas ma qeexna war murtiidkii soo baxayna kuma jirta. waxa laga heshiiyay dadku u baahan yihiin ma siyaasad bay ahaayeen wax dhaqan ba ma xoolo dad iska dileen iyo dad ba ayaro maana anigu dib u heshiisiintu sodon sano ayaa dalkan burbur ka jiray. dagaalo sokoyo badan ka soo mareen. 2015 waxaa loo dhisay maamul goboleed loo wada leeyahay ma fahamtay. maamul goboleedkii loo leeyahay ama siyaasado badan isdiidan ama wax kasta dadkan goboladan mudug iyo Galgaduud degaaho Soomaalida kale waa ka firfircoon yihiin.
firfircoonintiina waxay timi in maamulkii dhisnaayo uu dumo sababo jira aawadood waa la xalliyaa guriga la dhisaa markii aas-aaska la sameeyo kabacdi ayaa la dhisaa anigu waxaa laga heshiiyey in wax la wada dhisto wixii lagu kala bedelnaana la iska dhigo markii wax la dhista kabacdina wixii tabashaa oo maaragtay oo la kala tabaaya markaas kabacdi ayadana dowladaas la dhisaa iyo dowladda federaalka ay dhammaystiraan laakiin hadda waxaa lagu heshiiyey inay galmudug liyuuga kuwa tabagood ay dhistaan warmurtiyeedka soo baxay ee 7 qodob ah odayaashu dhaqanka ma ogaayeen ka hor intaanan la baahin oo dadka lala wadaagin talama ku lahaydeen sidii wax u qoran yihiin ma ka waraysan waa ku lahaayeen odayaasha dhaqanka warmurtiyeedka la qoray waxaa laga qoray odayaasha dhaqanka yargada xaraysan si guudna waa loo waraystay si goonigoonina waa loo waraystay kabacdina talada ku lahaayeen oo marka ay kala waraystay kabacdi warmurtiyeedka soo baxay dadku waxay qabaan warmurtiyeedka soo baxay odayaashu dhaqanku inaanay tala ku lahayn oo wax meel gaar ah u janjeereynay dad horta meel kale soo keeno wax ku wada heshiiyaan odayaasha dhaqanku warmurtiyeedka soo baxay in macnaha wax laga bedelo oo waxa soo baxay ay macnaha qaabkooda dalil waa iska imaan kartaa laakiin waxa lagu heshiisayna dowladda ma soo saari karto dadkuna ma ogolaayaan waya tabasha jirta dhinaca kale magaalada hadda Cadaado kale banaanbaxa socday tan iyo markuu shirka furmay iyo la xirayaba reer Cadaado iyo tabashadooda wax ma la iska yiri wallahi reer Cadaado ana ka soo jeeda tabashada ay tabayaan waa tabasho cad oo dowladda federaalka u ballan qaaday waxa sida maaragtay qaybaha kamid ah ayada odayaasheen warbisi guudna waa hadalay warmurtiyeedkaas intuu soo bixina waa dhiimay waxaana rajeeyeen haddana waxa u fadhiya dad odayaalahan iyo siyaasiyiin inta ku joognaa dowladana waa ka wada hadalay ayadana insha Allah kariim inay ilaahay noo dhameeyo rajeeyna waxay yiraahdeen cidna nagu matasha shirka Cadaado dadka ka qayb galayana reer Cadaado ma matalaan marka waxa taadina waa matalanay soo qaban kara warka warkaas waxa ka soo jira hadda waa la dhameeyay ma fahamtay maxaa lagu dhameeyay waxaa lagu dhameeyay in dowladda iyo dowladnimadu laga dhaxraadiyo wax kasta ay reecada tabayaan marka wax kasta oo reecada tabanayaan oo magaala madaxdu in la kala qaybiyo oo baarlamaankii iyo xarumihii kale loo balan qaado la sii way taas ma la isku raaco maya aniga taas midaas hadee ogtahay shaqadaas markay shaqa dhiman ilaa la dhamaystiro maaragtay ilaa dhamaystirkeeda la gaaro أنا هذا في فايو يا روي ما فات وايد dadka reer Cadaado ku dhageysanaya ee gudo iyo dibadba jooga adigu wakiil aad ka tahay galmudug aad ku matalayso shirkii dib u heshiisiinta maxaad leedahay u sheegaysaa banaanbaxa iyo cabashadooda maxaa ku damin kartaa waxaan dadka reer Cadaado way ka mid yihiin dadka galmudug oo dhaliilaha tawaaya ayay ka mid yihiin waxay tawaayaan إلا لا نقول لا قرعي وإحنا قرعنا سعد وارغنا أنا هذا كان المظاهرات وحاصنا كل هذا مدة حيان من الجيران وإحنا ديروي بريو هنا وقال زمان شركة يدبه شيء تاعي كوي توقف بينه كوي شيء واحد طوشنا ده خفك صلاوي أي كلها هاي باشا على قوها السابق هيسيا كتيرة